kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani warbaahinta Warbaahinta online ku soo dhawaada warka warbaahinta qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya barasaabkii hore odal oo weli firxad ku ah magaalada Hargeysa ee ayuu ciribay jandhigay warkan ayaad ku daawan doontaan Puntland mahayada federaalka mise waa hooyada fawada oo warbixin cajiib ah oo aan idin soo gudbinayno dowladda goboleedka Galmudug oo qaaday tallaabo aad uga naxisay madaxweyne Farmaajo haddaba tallaabadaasi maxay tahay warkan ayaan idinku hayaa sarkaal shaab ka tirsan oo soo dhibay dowladda federaalka Soomaaliya magaca sarkaalkaasi goobta uu isaga soo dhibay iyo xilkiisa ayaan idin haynaa dibaddana waxaan idinkaga hayaa dalxiisayaal ku dhintay shil ka dhacay dalka Hungary qodobada ayaa daawan doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 30 bisha shanaad May 2019 u diyaar garooba saaxiibayaal daawashada qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka door xulan aynu ku bilownay barasaabkii hore gobolka Awdal ayaa waxa uu weli firxad ku yahay magaalada Hargeysa barasaabkii hore gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa weli firxad kaga maqan magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama barasaabka ayaa muddo bil ku siman firxad ku jooga magaalada Hargeysa isagoo ka soo cararay dabagalkii gudoomiyaha ka ahaa sida uu sheegay xildhibaan Cabdi Cusmaan Dhagaweyne oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Boorama xildhibaan Dhagaweyne ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa waxa uu sheegay in barasaabkii gobolka Awdal deegaanka uu mas'uulka ka ahaa uga baxsay dilkii loo geystay labadii sargaal ee ka soo jeeday gobolka Awdal Dhagaweyne ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu barasaabku u tagay magaalada Hargeysa si uu uga soo qanciyo inuu ku soo laabto gobolka uu ka talinayay balse waxa uu sheegay inuu ku gacan sayray barasaabku waxa uu yiri arrintan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii saraakiil ka tirsan maamulka Somaliland sanadkan gudihiisa lagu dilay qaybo ka mid ah deegaanada Somaliland waxaana la sheegayaa in barasaabku uu ka dambeeyay dilka saraakiishaasi kana firxaday gobolka Awdal uu maamulayay ilaa haatan aan la garanaynin meel uu jaariyo cirib dhigay Galmudug oo qaaday tallaabo aad uga naxisay madaxweyne Farmaajo haddaba tallaabadaasi maxay tahay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu hakiyay wada shaqayntii ka dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya Galmudug waxa ay joojisay xiriirkii wada shaqeyneed ee dowladda federaalka Soomaaliya inta heshiis siyaasadeed laga gaarayo arrimaha dhamaystirka dastuurka doorashooyinka federaalka iyo amniga qaranka sidoo kale war-saxaafadeedkan oo aad u dheeraa ayaa Galmudug waxay beesha caalamka ka dalbatay inay si dhow ula socdaan xaaladda siyaasadeed ee dalka inaysan aqoonsan sharciyada ay wado xukuumadda Soomaaliya iyo inay xoojiyaan la xisaabtanka dowladda federaalka Soomaaliya arintani waxay ku soo aadaysaa xilli aad u sii xoogeysanayo khilaaf u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka dowlad goboleedka Galmudug waa maamulkii labaad ee xiriirka u jara dowladda federaalka Soomaaliya waxaana horey u horeysay dowlad goboleedka Galmudug oo sheegtay inay xiriirkii u jareen dowladda hogaamiye madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay sanadihii la soo dhaafay cadaadis xoogan kala kulmaysay dowlad goboleedka dalka ka jira warow shirki ka dhacay magaalada Garowe ee u dhaxeeyay dowlad goboleedka dalka iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo Xasan Cali Khayre uu fashil ku soo dhamaaday waxaana isbahey samaysanayay maalmihii la soo dhaafay maamulada madaxdooda qaarkood waxayna si gooni kaga shirayeen qaabkii uga qarsan lahaayeen sida ay ka yeelayaan madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa Galmudug ayaa waxaa lagu cadaadinayay maalmihii la soo dhaafay inay soo raacdo dowladda federaalka Soomaaliya walow maamulka Galmudugna ay ka cagajidayeen inay hoggaansamaan awaamirta dowladda federaalka Soomaaliya waxaana hadalkani ka soo yeeray dowlad goboleedka Galmudug oo dhabarjab weyn ku yahay hanaankii madaxweyne Farmaajo ka damacsanaa Galmudug waxaana la ogeyn tallaabada uu qaadayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee ku aadan arrinta Galmudug kadib xiriirka loo jaray dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa soo dhibay taliskayada nabad sugidda sirdoonka degmada Beled Xaawo ayaa waxa ay soo bandhigeen sargaal sare oo ka tirsan dhulka Al-Shabaab kaasi oo ka howlgalayay deegaanada gobolka Gedo taliyada nabad sugidda ee degmada Beled Xaawo oo saxaafadda la hadlaya waxa uu sheegay sargaalkan isku soo dhibay ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo ahaa xubin muhiim ah xarakada Al-Shabaab taliyada sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ay ku howlan yihiin sidii loo soo qaban lahaa saraakiil kale oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay inay ka mid ahaayeen kuwa weerarada ugu badan ka geysta deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland
sargaalkan ciidamada Jubbaland ku soo bandhigeen degmada Beled Xaawo ayaa waxa uu kamid ahaa kuwa fuliya weerarada ugu badan ee al-shabaab ka geystaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo sida uu taliyuhu sheegay. Taliyaha NISA ee Jubbaland ayaa waxa uu sidoo kale tibaaxay in saraakiil kale oo la shaqeynaysay sargaalkani ay fursad u haystaan inay isku soo dhibaan ciidamada maamulka dowlad goboleedka Jubbaland ka hor inta aan la bilaabin dagaalka ka dhana xarakada al-shabaab. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab iyadoo al-shabaab weli weeraro ay geystaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ay maamulaan. dhamaadka bisha Ramadaan ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu sheegay inuu bilaaban doono howlgal lagu ciribtirayo xarakada al-shabaab ku sugan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen warbaahinta Walbanaadir online saaxiib yar nageynta subscribe haddii aad ku cusubtahay warbaahinta Walbanaadir si ay ku soo gaaraan akhbaaraadkii ugu dambeeyay ka dhaca wadamada caalamka.